maanta waxaan ka sheekeynaa sida u shukaansada hooyaday ninkeeda. aniga magaciisa waxa la dhahaa Maariya, waxaa jira 19 jir. hooyaday aabaheena mar hore ay kala tageen. anna waxay soo korisay ayeeday. hooyaday sida hooyooyinka camaliyada ma naxariis badno. hooyadayna waxaa qabo wiil yar oo jiro 24 sano jir. maalin maalmaha kamid waxaa go'aansaday inaa hooyaday soo booqdo oo ayaamo la soo joogo. hooyadayna imaashadeeda ma ku farxin. hooyaday ninkeeda waxaa la dhahaa Axmed, waa nin naxariis badan oo wiil yar oo aad u qurux badan. hooyaday badana way maqnaan jirtay, asxaabteeda badana waqti la soo qaadan jirtay. gurigana ani Axmed hooyaday ninkeeda aa joogi jirnay. run ahaantii marka la jooga farxad aad ayaa dareemi jiray. habeenaha kamid ah hooyaday aroos aade wayna ku soo daahaysan. gurigana ani hooyaday ninkeeda ayaa joognay. ani hooyaday ninkeeda waxa fiirsanayna filmaan jacayl ah. kastoo dareen jacaylna waa dareennay. kastoo ani dareen jacayl oo zaid ay u qaaday. ana ku fiirsanayna filmaha oo jacaylka uu isoo dhawaayay oo ishumiye. anna ma ka diidin. asina wuxuu dhahay wuxuu sheegay inuu jecel yahay oo la'aantii noolaan karin oo hooyaday oo furaayo. oo ani asii meel dheer aadayna wadanka tageen camal. aan run ahaantii ninka waa jeclaay. hooyaday binahaayna way ka weyn tahay wiilkana waa yar yahay. ani ninkana waxyaalo badan aan dhaxmaray jacayl iyo waxyaalo ininka oo fahmi kartiin. mar walba waxaa gaadi jirnay hooyaday inay baxdo leh. maalin maalmaha kamid ah hooyaday waxay ogaatay ani ninkeeda wax naga dhaxeeyo. hooyaday maalintaas ii dishay wax yar ugu dhimnaa inay nafta i dhaafsiiso. gurigeeda iga burisa waxay dhahay gabar sida aan ma dhalin ilaa haddana hooyaday meel hadasho. Axmed ayaa soo hadlay wuxuu dhahay aan hooyadaa waa fure. hooyadaana ma jecleen, adaa ku jeclahay la'aantaana ma noolaan kari. ani ilaa hadda waa shilaynaya. Axmed xataa wajigiisa inaan arka marabi.